هاتن أوريجا يا دكتور مهدي موسى حسن دكتور مهدي waxbarashada sare masters iyo PhD oo ku sameeyay waddanka Turkiga wuxuu ka mid ahaa dadkii deeqaha waxbarasho ka faa'iideystay doctor waxaa jira arday badan oo laga yaabo markay dhameeyaan jaamacadda inay ka fakarayaan inay waxbarasho dibadda aadaan in badan oo ka mid waxaa laga yaabaa hadda kharashkii ay isaga bixin lahaayeen masters iyo PhD inaysan diyaar u ahayn oo ay ka fakarayaan inay ka faa'iideystaan deeqa waxbarasho oo ay bixiyaan wadamada adduunyada ee saaxiibka la ah Soomaaliya haddaba maxay yihiin waxyaabaha ay ku xushaan wadamada adduunyada marka ay qaadanayaan ardayda scholarships ay siinayaan maxay sitaa waxyaabaha caawin kara qofka danaynayo inuu banaanka wax kusoo barto deeq waxbarashada uu ka helo soo dhawo doctor dhammaan ardayda iyo heeldheerayaasha aadaan u salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sababta su-aashaas la igu xushay maadaama aan laba degree ama masterkayga iyo PhD aan kusoo sameeyay dal ajnabi aan kusoo sameeyay waliba aan scholarship ahaan labaduba laba jeer oo kala apply gareeyay aan ku guuleystay oo ilaahay ugu guuleystaas awgeed khibradda yar oo aan leeyahay ayaa su-aasha la ii weydiiyaan malaynayaa arday badan oo maxaa la yiraahdaa iyana danaynaysa inay jiri karto dabcan way jiraan san is leeyahay iyana in looga faa'iideeyo shuruudaha iyo waxyaabaha ugu muhiimsan oo inuu qofku ku baraarugsanaado marka uu danaynayo inuu helo scholarship ama waxbarasho deeq waxbarasho oo dibadda ah ayaan rabaa inaan xoogaa kuwa ugu muhiimsan aan taataabto scholarshipku laba ay u qaybsamayaa caadiyan mid national oo local ah jaamacadaha gudaha ay bixiyaan kama hadlayna maanta midka internationalka ah oo dalalka dunida ay bixiyaan ayaan rabnaa inaan ka hadalno scholarshipka markay bixinayaan qarash badan iyo budget badan ay sanad walba ama sanawiyan ay meel u dhigaan ama ugu talagalaan dowladaha caalamka marka qarashkaas tirada badan ay bixinayaan iyagu waxay leeyihiin ujeedooyin gooniya oo qarsoon oo aad u tiro badan oo ay ka mid yihiin ujeedooyin dhaqaale ujeedooyin siyaasadeed ujeedooyin dhaqan iyo ujeedada ugu muhiimsan oo ah in sumcadda dalkaas ay gaarsiiyaan meelo kala duwan marka waxaa jirta waxyaabo fara badan oo iyagu soo bandhigaan oo shuruudo ah oo website-yadooda ama meelaha tooska ay ula xiriirayaan loogala xiriiro oo looga apply gareeyo ugu talagaleen ay soo dhigaan iyo kuwo qarsoon oo aysan kor u sheegayn oo maxaa la yiraahdaa iyagu ay rabaan kaliya ay fiirsanayaan marka waxaan rabnaa inaan sheegno labadaba qaarkood aan isku darno shuruudda ugu horeysa oo ay daneynayaan waxaa waaye qof tayo leh oo high quality oo quality-giisa oo aad u sareeyo oo maxaa la yiraahdaa dacwaday ujeedada laga leeyahay ximbaari kara ko shuruudda shardigaas ayaa ugu horeeya wayna kala qaybiyaan oo gobol dalal iyo u kala qaybiyaan scholarshipka qaar baa daneynaya gobol nooca aykaas ama gobol qaybtaas dunida qayb kamid ah daneynaya hadba qayb ay daneeyaan marka qaybahaas ayaa loo kala badiyaa marka kaliya waxay daneeyaan ardada digriga fiican haysata arda dadaalayo oo maxaa la yiraahdaa aqoon fiican leh oo wax soo saari kara oo qarashka ay geliyeen ka soo dhalaali kara ay rabaan marka ardada darajadooda inta badan waxay qaataan darajo fiican wata sida B+ iyo wixii ka sareeya wata ay inta badan daneeyaan markay scholarshipka siinayaan sidoo kale qodobka ugu muhiimsan oo kale iyana ay daneeyaan waxaa ka mid ah in ardagan inta kale looga harimayo ardaga dan way shahaado bunda fiican ku qorantaa kale ayad wadataa lagaaga harimaayo waa lagu imtixaanayaa oo interview iyo laga qaadaya sidoo kale waxaa jirto qoraalo aad sameynayso iyo su'aalo aad ka jawaabaysid su'aalahaas ay ka qiimeynayaan ardaga quality-giisa ay ka qiimeynayaan waxaa ka mid ah marka sidoo kale in dokumentiyadaada ay ku dhameystiran yihiin in dokumentiyadaada ay ku dhameystirin full documents aad wadato sida baasaboorradii shahaadooyinka kala duwanaa waxaas oo dhan aad wadato iyana waa shuruudaha kale ugu muhiimsan sidoo kale shuruudaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah ardagan ama qofkan inuu leeyahay
power of research making inuu research samayn karo inuu samayn karo awooddaas ay ka daneynayaan sidoo kale waxay ka daneynayaan qofkan national waxa la yiraahdo eligibility qof eligibility marka waxaa loola jeedaa qofkan ma xambaari karaa aragtida aan rabno inaan ku xambaarno sida culture-kooda inay ku gudbiyaan luuqadooda inay ku gudbiyaan ujeeddadaas oo dhan oo la isku soo duubay ayay iyagu ka daneynayaan okay ujeeddooyinka qarsoon waxaa ka mid ah qofkan inuu u noqdo markuu meeshaa tago wuxuu baranayaa kow culture-ki dalkan ayuu baranayaa waa lagu qasbaa inuu barto culture-ka sababtoo meel dormitory ayaa la dhex dejiyaa ardada dalkaas u dhalatay ayaa lala dejiyaa oo dhowra ayaa lala dejiyaa marka dhowrkaasna wuxuu la macaamilayaa keliya dadkaas ayuu la macaamilayaa sidoo kale waxaa qasab ku ah inuu luuqadda dalkaas uu barto oo 1 year uu qaato ugu yaraan 1 sano uu qaato weliba imtixaanaad ayaa la marsiiyaa imtixaanaadkaas inuu ku soo baasaa shardi hadduu ku soo baasi waayo jaamacadda ma sii dhiganayo waa laga kansalayaa luuqaddaas inuu soo barto qofka marka wuxuu noqonayaa sidoo kale wuxuu isticmaalayaa sida asaatidii ugu horeysa qaarkood ay ka dhawaajiyeen in la baro culture-kooda waxaa ka mid ah cuntadooda la barayaa dhaqankooda la barayaa ardayga keliya galaaska fadhiisan maayo xilliyo qaar waxaa loo sameeyaa wax la yidhaahdo trips ama safara loo sameeyaa waxaa la geeyaa goobahoodii dhaqanka goobahoodii waxbarashada xataa waxaa loo geeyaa family inuu la soo joogo habeenno iyo maalmo uu la soo joogo soo waqti u soo qaato culture-kooda dhaqankooda uu u soo xambaaro marka qofku wuxuu imaanayaa isagoon is-ogeyn ayuu wuxuu xambaarsan yahay culture kale dhaqan kale weliba wuxuu u noqonayaa wax la yiraahdo ambassador ayuu u noqonayaa dalkaas kale marka wuxuu noqonayaa il ay kala soo xiriiri karaan ama markay u baahdaan xataa waxaa laga reebaa communication-kiisoo dhan ayaa laga reebaa emailadiisa wixiisa dhan telefonaadkiisa adressadiisa dhan laga reebaa taa waa mid ka mid ah ujeeddada inuu ambassador inuu noqdo ujeeddada labaad wuxuu arkayaa maxaa la yiraahdaa wuxuu arkayaa khibrad wax soo saarka dalkaas iyo macnaha dhaqaalahooda waxaasoo dhan ayuu soo baranayaa sidaas awgeed wuxuu abuuri karayaa inuu xiriir ganacsi inuu ka dhex abuuro labadan dal iyana waa ta ugu muhiimsan waxyaaba ugu muhiimsan ay daneynayaan in qofka maxaa la yidhaahdaa oo productionki dalkan oo export inta ku sameeyo dalkiisa uu geeyo waa mid ka mid ujeeddooyin ganacsi leena ujeeddooyinkaana mid ka mid inuu qaado tusaalahaan hadda Soomaaliya iyo Turkiya markaan ka hadalno ujeeddooyinka ugu waaweyn waxaa ka mid ah ujeeddooyin dhaqaale ka mid ujeeddooyinka maadaama ardo badan ay Soomaaliya ay siiyaan maxaa la yiraahdaa scholarship ay siiyaan ujeeddooyinkaas ka mid ah ujeeddooyinka qodob kale muhiim aan ku dirayaa ujeeddooyinka waxaa ka mid ah in luuqadooda iyo culture-kooda iyo maxaa la yiraahdaa dadkan la macaamilkooda u fududaado wax la yiraahdo public policy in loo gacan dhaafo dawladdii dadkeeda oo iyadoon ogeyn xiriir toos laga sameeyo oo gadaasheeda lagala macaamilo ay fududaato in lagala macaamili karo sidoo kale ay u noqoto pressure lagu bareesharay karo dawladda kale lagu bareesharay karo dadka iyagu ay soo tababarteen maxaa la yiraahdaa iyagu ay aqoonta ku soo xambaareen marka inahaas ugu muhiimsan waxyaabaha looga baahan yahay documentska ama waxyaabaha ugu muhiimsan ee laga yaabo inay caawiyaan ardayga raba inuu scholarship banaanka u raadsado kusoo dhawo intaanan u gudbin dokumentiyada qofka raadsanaya ama rabo inuu apply gareeyo scholarshipka intaanan u gudbin dokumentiyada looga baahan yahay waxaan rabaa scholarshipyada available-ka ah sanad walba soo laalaabta Soomaalidana ay eligible u yihiin inaan ilaa dhowr ka sheego waxaa ka mid ah scholarship-yada ay bixiyo dawladdan Turkiga oo bixiyay sababtan ugu horreysayna waxa waaye number fara badan oo arday Soomaaliyeed ay sanad walba qaataan 150 200 ilaa isku celcelis saddexda degree oo masterka bachelorka ilaa PhD saddexdaas heer waxay qaataan isku celcelis marka la isku soo celceliyo 200 meelaha ay qaataan waxaa ku xigo South Korea ayaa ku xigayna arday qaataan waliba masterka inta badan iyo PhD ay qaataan sidoo kale Chinese scholarship jiro
قدر جرو scholarship جرو African scholarship program scholarship كله اللي راح جرو UK خاصة شيفنين يا جرو so dadka masterka ama ardada masterka daneynaya iyana qaata sidoo kale waxa jiro European scholarship waxa la yiraahdaa iyana jiro Sharmiliyo kale dad scholarship la yiraahdo all scholarship-yadaas aan tirinayo ardada Soomaaliyeed ee daneynaysa ku fikiraysa inay dibadda wax ku barato ama scholarship hesho dhammaan eligible waa u yihiin sidoo kale Japan scholarship baa jiro Saudi Arabia jaamacado iyo ay u bixiyaan sidoo kale marka waxaan rabaa dukumeentiyada ugu muhiimsan maadaama waqtigu uu aad cariid u yahay in uu diyaarsado ardayga oo diyaar u yihiin mar walba si uu uga faa'iideysto waqtiga kooban oo furan yahay scholarship-kan uu si diyaarsado ayaan rabaa inaan dul tago waxa kamid ah passport ama identity card inuu diyaarsado diblomooyinkiisa ama maxaa la yiraahdaa dibloomada caadiga ama certificate-kii iyo transcript-kiisa inuu diyaarsado sidoo kale shahaadooyinka kale oo takhasusaadka kale ka haysto ama koorsooyinka kale oo haysto sidoo kale way kaabayaan waa loo baahan yahay inuu iyana sii diyaarsado waxaa jiro waxyaabo fara badan oo kale ayaa jira dukumeentiyada ugu muhiimsan waxaa kamid ah statement of purpose ama letter of entity ayaa jiro iyana waxa la yiraahdo ama letter of information waa meel very important oo ardaygan meelaha ugu muhiimsan ay ka fiiriyaan aragtida ardaygan ama aqoontiisa ay ka fiiriyaan waa meesha sida hab oo critical thinking ama wax uu qori karo ama wax uu qori karo ama wax uu soo kordhi karo waxaan inuu barto uu rabo sidoo kale waxaa kamid ah CV-giisa inuu diyaarsado oo si hagaagsan u qoran waxaa kaloo kamid ah waxa la yiraahdo letter of recommendation inuu barayaashiisii macallimiintiisii ama hay'adaha ama maxaa la yiraahdaa goobaha akademiga uu ka shaqeeyo inuu recommendation letter of recommendations uu ka sii diyaarsado sidoo kale waxaa kamid ah haddii uu heli karo oo very important ah in uu helo standardized documents ka la yiraahdo sidoo kale waxaa kamid ah TOEFL-ka kamid ah IELTS-ka kamid ah GMAT-ka kamid ah waxyaabahaas oo kale oo iyana aad u kaabaya waliba very important u ah una sahlaysa si fudud inuu ardayga ugu guuleysan karo scholarship dukumeentiyadaas ayaa muhiim u ah inuu sii diyaarsado ka hor inta uusan apply gareen sidoo kale waxaa muhiim ah in shuruudaha ku qoran page-ka lagu soo bandhigo oo si careful u akhriyo isagoo step by step u raacayana shuruudaha uu buuxiyo aad mahadsantiin inta aan ku soo koobay